kusoo dhawaada warbaahinta cusub qodobada aan yahaynana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Marwo Tina Interman. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta mashaariicda horumarineed ee Midowga Yurub ka taageero Soomaaliya iyadoo lagu saleynayo howlaha hortiminta u leh dawladda Soomaaliya. Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Tina Interman ayaa sheegtay inay si dhow ula shaqeyn doonto dawladda cusub ee Soomaaliya isla markaasna ay kordhinayaan mashaariicda horumarineed oo ay ka fulinayaan Soomaaliya. wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada iyo abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa gaaray degmada Baardheere ee gobolka Gadow. wafdiga oo ay qayb ka yihiin mas'uuliyiin ka socda dawladda Qatar ayaa halkaas u tagay kurgelidda xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay ee ku nool degmada Baardheere ee gobolka Gadow. madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa sheegay inay wax dhib ah ku qabin ciidamo goboleed la geynayo dalka Congo. dhinaca kale madaxweynaha dalka Congo ayaa sheegay inay doonaynin ciidamo ka socda dalka Rwanda. bishii Abriil 7 wadan oo ku buhoobay bulshada bariga Afrika oo ay Congo ku biirtay sanadkan ayaa ku heshiiyay in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah, balse madaxweynaha Congo ayaa ka soo horjeestay in ciidamada Rwanda ay ka qayb qaataan howlgalkaasi. waxaa sii xogeysanaya xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya reer galbeedka iyo Ruushka kaasi oo ka bilowmay dagaalka ay Moscow ku qaaday Kyiv. magaalada Sofia ee xarunta dalka Bulgaria waxaa xadii laga musaafiriyay shaqaale diblomaasiyadeed iyo qoysaskoodii oo u dhashay dalka Ruushka oo la saaray 2 diyaaradood. arrintani ayaa xaalad adag ka dhex abuurtay labada dal oo taariikh ahaan xiriir dhow lahaan jiray balse hadda u muuqda inay si kala fogaanayaan. guud ahaan daawadayaal waxaa intaas noo eg warkii koobnaa ee kala socotay warbaahinta cusub. inta ku kulmi doono warkani warka xiga sidaas iyo nabadgelyo.